nabad naxariis iyo nabadgal iyo korkiina ha ahaato waa aniga oo Cabdishukri Haybe Class oo ku sugan goob weyn oo dhowr iyo 10 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo waa xarun dalxiis oo ashqaraar leh qof walba yimaadana uu la amakaagayo quruxda deegaanka iyo dabeecadda la yaab kale ee meesha halkani waxay ku haboon tahay dalxiiska iyo damaashaadka waa barta ay ku kulmaan webiga Juba iyo badweynta Hindiya waxa ku nool bulsho Soomaaliyeed oo xoolo dhaqato beeraley ah halkan way ku kalluumaystaan beerana way ka tabcadaan waxay ku nool yihiin nolol aad u qurux badan walow ayna haysanin goobo ay wax ku bartaan carruurtoodu haddana dadka halkan ku nooli way ku faraxsan yihiin inay ku sii noolaadaan halkan farintaan idin reebayay waxay tahay in goob weyn ay mudan tahay in laga faa'iideysto xarumo dalxiisna laga sameeyo qof walba oo Soomaaliyeedna fursad ayaa uga banaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxa weeye barwaaqada aad arkaysaan ee webiga iyo beeraha iyo badda waxa weeye barwaaqada wixii ka faa'iideysan lahaa loo baahan yahay waxa ka faa'iideysan karta waxa weeye maskax saliima maskax caafimaad qabta umba ka faa'iideysan karta maskax bugta ay kama faa'iideysan karto waxa weeye ilaa hadda aan wadankeen oo xornimada qaatay ilaa hadda barwaaqadana way jirtay waxa weeye hal mar lagama faa'iideysan waxaan leeyahay waa in laga faa'iideystaa sida looga faa'iideysana waxa weeye in la isku tanaasulo lees maqlo lees wanaajiyo hoggaan fiican iyo daacadnimo ay timaado yaa laga faa'iideysan karaa kadib cilmigeedii waa aragnimadeedii inta badan waa aragnimadeeda la helaya marka maadaama saas tahay waxaan ugu baaqayaa inta uu dhalinyarada aqoonyaanka ee kullu waxa la yiri waqti walba rag buu leeyahay kullu zaman loo rijaal marka maanta waa waqtigeeni dhalinyaroy ka kaca fadhiga ka kaca kii qof walba waa inuu baraaruga uu ka baraaruga soo wadankiisa uu qaban lahaa magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Xasan waxaan ahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku nool Jubbooyinka webigaan aad u jeedaan runaantii wuxuu ka soo bilowdaa magaalada Doolow ee gobolka Gedo halkaan aan joogno ayuu ku dhamaadaa oo ah Kismaayo afkeeda oo goobeen runaantii webiga intaas la eg dad population waxa ku nool oo yaraan ama oo badnaan 2 milyan ka yar khayraadka webigaan ka soo baxana waxa loogu talagalay inay ka faa'iidaan 7 milyan balse waxa arkaynaa 2 milyan ama 2 milyan 1 milyan ee barkii oo isceersanayo iscuqdadeenayo isxasdaayo marka aad iyo aad waxaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadda ugu baaqi lahaa inay arkaan nimcada aysan arkin macnaha xil ama siyaasad nimcadan badana waxa la isku dilo waa baahi qof dhirigsan macnaha ma dagaalamo ma ordo xilka waxa loo raadinayo in shilimaad lagu helo laakiin haddii webigaan iyo khayraadkan iyo baddaan iyo kalluunka haddii lagu wada jeesto lisma dili lahayn dibaddan looma qeexi lahayn waxaan rajayn lahaa ilaahay inuu nimcadan quraxda badan fahansiiyo annagana dhalinyaradeen maadaama wax soo baran waxaan rajaynaynaa inaan dadka tusino khayraadka ayna ka badan tahay ayna ku wada noolaan karaan